taariikhdu waa mid iyada isqoraysa. haddaba aanu dul istaagno waxyaabihii dhacay ee ay geysteen ururkan manaxayaasha ah ee argagixisada al-shabaab. al-shabaab dhaawaca ay u geysteen ummadda Soomaaliyeed ma aha mid hal barnaamij kaliya lagu soo qaadan karo, waxay u baahan tahay boqolaal barnaamij, kanamana dhammaan karno haddii aan haatan isniraahdo soo bandhiga waxyaabaha ay u geysteen ummadda Soomaaliyeed. balse waxaan rabnaa in aan barnaamijkan ku dul istaagno shakhsiyaadka u adeegaya argagixisada kuna gambanaya magaca dhaqanka ummadda Soomaaliyeed. haddaba ninkan magaca ugaaska beesha Duduble ku qaraabanaya ee la yiraahdo Ugaas Ciise ayaan rabnaa in aan barnaamijkan waxoogaa ku iftiimino dhagarrada uu la damacsan yahay beesha Duduble. bal aanu soo qaadanno khudbadihii uu ka jeediyey iyo hiilkii uu u muujiyey argagixisada al-shabaab iyo sirta uu maagan yahay ninkan jirjiroolaha ah ee marba nuuc iska soo dhigaya. bal inala daawada waxa uu yahay. في ظل الإخاء حمانا الإله من بعد افتراقي كم طال اشتياقي. بسم الله الحمد لله. إلهي بقى مهد اسكاله مهد أسأل كدب وحان ليهي دادك مسلمين تاه وماشي اسوgu yimid noocyada badan u yimid ayagana waxaan leeyahay insha Allah cishi iyo sharaf dheeraada kuwa ku noolaad Allah idin ka dhigo. intaas kadib hadalka waxaa la yiri labana badsho labana bacsho. waxaan rabaa qodobadii muhiimka ahay oo meesha aan soo istaagay inaan aado labadii qodob oo bayaanka ahay oo la soo saaray oo midna ay soo saareen culimada hadii alla ku roon yahay muddada badan fadhiyay, midna ay soo saareen odayaasha iyo ugaasyada hadii alla ku roon yahay iyaguna fadhiya. labadaba hadii aan nahay reer Maxamuud Hiraab waxaan u qaadanay si buuxda oo kalsooni leh. nimaana waxaa la yiri shaydaanka hal qabtaa la yiri gacanowna ka gubtay oo midhaawal waa hore ka laabneed. anigu qaybtayda awlan bahayo la gacanta wali ka gubnoodo saatan u hayay. haddii aan reer Maxamuud Hiraab qaybtii lagu aad awlan hore u hayn haddana bayaanka soo baxa waa qaadan. sidoo kale waxaan leeyahay reer Maxamuud Hiraab waxay qaateen kutubka Ilaahay inay ku dhaqmaan. waxay qaateen cidii la qaadataa inay gacal u tahay. waxay qaateen cid kasta oo hadii alla ku rooyay darisa oo walaala oo la jaara oo kutubka Ilaahay qaadata ama ka dheer oo kutubka Ilaahay qaadata inay gacal u tahay. waxay qaateen cid kasta oo kutubka Ilaahay ka soo horjeeda inay cadawgeedii tahay oo cadow leeyihiin. intaas aan noo meel yaala insha Allah bidnillaahi al-kariim. waxaan ku sii darahayaa anoo raba hadalka inaan soo koobo ciddii isku dayda waxaan Ilaahay raalli ka ahay ayadu inay raalli gelido u suuroobi mi ilaa Ilaahay aan raalli ka ahayn yay kullugu inay iska dhaaftaan leena yay ummadda kullayna iska dhaaftaan leena ummadda uga raalliga ahune Ilaahay ha u toobad keenaano oo ha ka joogeen waxaan Ilaahay raalli u ahay. qofkii aakhiradeedu inay qurxoonaato rabtaa Ilaahay kutubkiisa ha qabsato. qofkii adduunka sumcad ka rabtaa Ilaahay kutubkiisa ha qabsato. dadka waxa kale loo sheegayo oo maarta hadda qiyaartii iga horreeyay ay tiriday waxaan leeyahay Ilaahay ha u toobad keenaan hana ka joogeen waxaan Ilaahay raalli ka ahayn cid socodsiin kartaa ma jirtee. waxaan leeyahay dadka iyo dalka iyo diinta cadawga ku soo duulay maxaa tiraahdeen Allah jabiyaan leena. aniguna intaasan galabta ku sii daraa sida hadda odayaashii iga horreeyay qiyaarta ay u qaybsadeen oo la yiri maaragta qolo walbaba wixii ku aadan iska celido. nabadoonka cidda ka hadlo Xaaji Bashiir ka hadlay dadkuna hadda ma isku baramaayo awal hore la soo yaqeen wixii nagu aadanay wixii nagala gudboonaan ka yeelaynaa hadda Alle
waxaan ku aadanaha ma aysan imaan jirin mana imaan doonaan dee alla idmo allahu akbar marka intaasaan hadalkayga ku soo koobaa wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu